wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb tababar uga qabatay beeraley ka kala yimid degmooyinka maamulkaasi. Tababarkan oo socon doono muddo 3 maalmood ah ayaa beeraleyda lagu bari doonaa kor u qaadida wacyiga iyo aqoonta beeraleyda Galmudug si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha isla markaana loo gaadho isku filnaansho cunto oo gaari karta heer qoys walba qayb ka mid ah guriga uu ku tabcado khudradda cagaaran. Wasiirka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa Galmudug Dr. Axmed Nuur Xaaji Cusmaan oo ka hadlay furitaanka tababarka ayaa xusay in Galmudug door wanaagsan ka ciyaarayso kor u qaadista tababarka iyo beeraha isla markaana dowladda Turkiga ay qayb ka tahay dalalka daneynaya in ay malgaashi ku sameystaan beeraha si isku filnaansho cunto loo gaadho. maanta inaan isugu nimaadno tababarkan oo lagu horumarinayo aqoonta iyo wacyiga beeraleyda Galmudug. waxaan isleeyahay insha Allah wuxuu noqon doonaa mid si weyn looga faa'iideysto wax badan laga barto. runtii wasaaradda beeraha bilihii u dambeeyay waxay waday tababaro badan oo loo qabanayo beeraleyda Galmudug. deegaankan tababaro badan aan ku qabanay bilihii u dambeeyay. waxaan idin sheegayaa yaanyadii ka baxday degmada Gaalkacyo in lagula tartamay dhoobo yaanyadii ka baxday oo safaaradda Turkiga ay ku tartameen iyadana ay ku guuleysatay oo waxaad arkaysaa geedo timira oo Galmudug ku yaala oo kuleej dhaxdiisa ka baxay 7 sano kadib adigoo saan u taagan maaha adigoo taagtaa iska dhaf adigoo fadhida aad mirahoodii guranayso waa 7 years life waaye waa deegaano Galmudug ay ku yaalaan. marka sidaa aawadeed dhulkan waa dhul wax soo saar digirta ugu fiican Soomaaliya min Ras Kiambon ilaa Ras Xaseer waxay ka baxdaa Galmudug. marka sidaa aawadeed waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano qofka inuu iska fadhiyo waxa ka fiican inuu shaqo qabto. guriga markaad joogtid time badan oo aad loos garan lahayd ama aad lumin lahayd ama aad waxyaabo kale ku dhimin lahayd gurigaaga inaad beer ka dhex samaysid qudaartii iyo waxyaabaha ilmaha cuni lahayn aad guriga ka soo saartid adoonan u gudbin tii banaanka ahayd. marka sidaa aawadeed insha Allah wasaarad ahaan dadaal badan ku bixin doonaa. shaqaalaheena wasaaradda capacity-gooda runtii waayahan tababaro badan aan qabanay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaan filayaa waayahan tiimamkii ugu badnaa ee wasaaradda ayaa bilihii u dambeeyey waxay aadayeen tababaro qaar lagu qabtay gobolka Baydhabo, Xamar, Garowe, Ethiopia iyo Turkiga. aniga waxaan tegay hadda muddo bilooyin laga joogo dalka Turkiga. waxaan la kulmay wasaaradda beeraha Turkiga. waxay aad u daneynayeen inay soo saartaan ama ay heshiisan ugula galaan digirta Galmudug iyagoo aad u daneynaya inay deegaanadan fusuuliyad ku beeraan. marka sidaa aawadeed waxaan la kulannay doorashooyin iyo xilli system doorasho lagu jira oo aanan awooddii la rabay wax lagu qaban karin. laakiin haddii insha Allah doorashooyinkaas ay dhamaadaanna Galmudug waxay noqon doontaa meel barwaaqo ah. madaxda Galmudug ayaa xooga saaraya dhiirigelinta wax soo saarka waxayna ku dadaalayaan kororka wax tabcashada iyadoo beeraleyda la siinayo gacan qabasho noocyo kala duwan leh.